jaaleel ku soo dhawaada youtube-kayga Toy Show oo hadda jeer uga barteen qisas iyo sheekooyin wax ku ool ah. Jaaleel ciwaanka kan aad arkaysaan Eebe oo sakaraadaya. Waxaanu ka soo qaadanay qoraal kale oo dheer uu qoray Professor Cabdisiciid Cabdi Ismaaciil ee ugu magac daray Eebe oo Turkiga ku sakaraadaya. Hay'ashee ciwaanka ayaan anigu Axmed Toy wax u bedelay Eebe oo sakaraadaya. Waxaanu ka tagnay intii ku saabsanaa dalka Turkiga. Waxaana xusid mudan in qoraalka oo dhani aanu soo qaadanay intii ubuucda ahayd ee ugu muhiimsaneed oo aanu ka tagnay oo kaliya tii Turkiga. Jaalayaal haddaba qoraalkan muhiimka ah ka faa'iideysta oo dhageysi wanaagsan ayaad leh. Jaalayaal qisada tan la yaab kale waxay ku bilaabanaysaa sida tan in Eebe dhiman waa mas'ala muuminka iyo mulxidku labaduba ay si fudud iskugu raaci karaan. Maxaa yeelay muuminku wuxuu aaminsan yahay in Eebe uusan dhalan oo uu aabid jiray wixii aan dhalanna aysan dhiman. Si taa la mid ah mulxidku waxa uu rumaysan yahay in Eebe uusan jirin oo dhalasho iyo dhimasho toona aan laga filay. Haddaba waa maxay sakaraadka iyo dhimashada Eebe laga sheegaya? Sakaraadka ama dhimashada Eebe waa sarbeeb ka turjumaysa xoogaysiga calmaaniyadda iyo hoos u dhaca ku imaanaya ku dhaqanka diimaha. Waa fikrad biyadhaceedu uu yahay in dunida casriga ah ay doodda waranluhu ka guulaysanayso doodda wadaadka. Hadalhaynta dhimashada Eebe qarnigii 19aad bay wadamada reer galbeedka ka bilaabatay. Laakiin dunida islaamka dhowrkii dabshid ee u dambeeyay baa laga baqlay. Erebixinta dhimashada Eebe waxaa lagu abtiriyaa filosoofkii Jarmalka ahaa ee Friedrich Nietzsche ee noolaa 1844-1900. Nietzsche buuggiisa sidaas baa Zarathustra u hadlay, isaga oo adeegsanaya carabka Zarathustra ama Zaratishti ayuu wuxuu noo sheegayaa in Zarathustra markii uu ka soo degay buurtii uu 10 sano dusheeda ku qilaaweynayay uu kayn buurta hoosteeda ku tiil kula kulmay wadaad waayeel ah oo u sheegay inuu bini aadamka necab yahay laakiin uu alle jecel yahay. Zaratishtina kolkii uu maqlay hadalka wadaadka uu ku yiri ii ogolow in aan dhaqso u baxo anigu waxba kaama sito. Waxa ay kala teen iyada oo labaduba ay qoslayaan. Goortii Zaratishti uu keligii noqdayna wuxuu iskula hadlay tani ma suurtagalba wadaadkan waayeelkii inuusan kaynta ku maqal in Eebe uu geeriyooday. sidoo kale dabshidkii 1882 Nietzsche waxa uu qoray buug uu bixiyay cilmiga farxadda leh wuxuuna ku xusay sheeko gaaban oo loo yaqaan qisada ninka waalan. Qisadaas dhexdeeda ninka waalani wuxuu ku doodayaa in Eebe uu dhintay dadkuna ay yihiin kuwa dilay. Nietzsche sheekadan waxa uu ku bilaabay sida tan: miyaad maqal ninkii waalnaa ee dharaarta cad inta Feynuus shitay suuqa tagay isaga oo ku qaylanaya ilaah baan baadi goobayaa ilaah baan raadinayaa. xilligaas suuqa waxaa dhoobnaa dad badan oo ilaah rumaysnayn oo aad ugu qoslay. Mid ka mid ah baa yiri oo miyuu luday. Mid kale ayaa isaguna yiri ma sidii ilmo caruur habuu wadada uga cabaday mise wuu dhuumanayaa miyuu naga cabsanayaa ma baduu ku socdaalay ma qaxay. sidaas bay qosol iyo qayl isugu jiibiyeen. ninkii waalnaa dadkii buu ku dhex booday indhaha ayuuna la wada raacay wuxuuna ku baroortay meeyay ilaah aniga ayaa idin sheegaya annaga ayaa dilay idinka iyo aniga annaga oo idil baa ah kuwa dilay laakiin sidee baan u dilnay. intaas kadib Nietzsche isaga oo adeegsanaya carabka ninka waalan ayuu isweydiinaya su'aalo waaweyn oo uu ku muujinayo miraha ka dhalanaya dhimashada Eebe. wuxuuna leeyahay sidee baanu badda u fuqsanay yaa nasiiyey isbuunyada aanu ku angajinay tan iyo ilku wareentayda maxaan samaynay markii aan dhulka iyo qorraxda xiriirka u kala jarnay xagee bay hadda u dhaqaaqaysaa xagee baan u dhaqaaqaynaa kor iyo hoos weli ma kala jirnaa miyaan waqtigu habeen joogta aan noqonayn miyaynaan u baahnayn in barqadii aanu Feynuus shidanno miyaynaan weli maqlayn sharqanta kuwa xabaash qodaya ee Eebe aasaya miyuusan weli noo soo urin qurunka meydka Eebe. ilaahyadu sidoo kale waa ay qurmaan ilaah waa dhintay ilaah waa meyd annaga ayaana dilnay. Nietzsche kuma faraxsanay dhimashada alle laakiin waxaa ku faraxsanay dadkii suuqa joogay oo waa iyaga kuwa geeridiisa ku qoslay. Nietzsche waxaa dhalay aabba wadaad ah oo kaniisad maamuli jiray isaga qudhiisa yaantiisii waxaa loo diyaariyay inuu wadaad noqdo waxaana loogu yeeri jiray naanaysta wadaad yare oo uu ku mutaysta sida quruxda badan oo Bible-ka u akhrin jiray. Nietzsche oo buugtiisa midkood Voltaire u hubeynayna wax loobaa inuu maqlay oraada Voltaire ee tiraahda Eebe xataa haddii uusan jirin waa in la ikhtiraco. sida awgeed Nietzsche si fiican buu dareensanaa xanuunka dhanka nafsadda ah ee ka dhalanaysa geerida Eebe.
wuxuu ogaa in dadka badankood ay alle iyo diinta ka dhigtaan dhufays ay waalida uga dhuntaan. Nietzsche isaga oo ay maskaxdiisa ka guuxayso weydiinta ku saabsan sida dadku ay u noolaanayaan geerida alle kadib, welina isticmaalaya carabka ninka waalan, ayuu dadka u soo jeedinayaa fikrad ah maadaama annagu aan nahay kuwa ee bedelay, waxaanu lakaga fadhiyaa inaanu buuxinno kaalinta eebbe uu baneeyey oo aanu qabanno howlihii eebbe uu qaban jiray intii uu noolaa, sida in nolosha macno loo yeelo iyo in loogu noqdo kala garashada samaha iyo xumaha akhlaaqda. dad badan ayaa waxay la tahay haddii jiritaanka eebbe uu meesha ka baxo ee akhlaaqduna meesha ka baxayso. dadkaana waxay la tahay in eebbe uu yahay kan saxda iyo qaladka noo sheeg, isla markaana ka baqidda ushiisa cadaabta iyo jacaylka korootadiisa jannadu ay yihiin waxa dadka ku bixiya inay akhlaaq sooban yeeshaan. abwaankii Fyodor Dostoevsky oo Nietzsche uu ku sheegay inuu yahay nin uu wax ka bartayna waxaa laga hayaa inuu yidhi haddii eebbe dhinto wax walba waa la fasaxaa. If God is dead, then everything is permitted. Nietzsche isagoo doodaas maanka ku hayana wuxuu xusay sheekada lagu magacaabo hooskii Buuda. Nietzsche waxa uu yidhi kadib markii Buuda uu geeriyooday, hooskiisa ayaa weli 100 sano lagu arkayay godka, wuxuuna ahaa hoos weyn oo laga arkayo. eebbe waa dhintay, laakiin marka loo eego sida dadku ay wax u arkaan, weli kumanyaalka sano ee soo socda waxaa jiri kari doona godad hooskiisa laga arko. annagu weli waxaanu u baahannahay in aanu godadkaasi u duminno si lamid ah sida aanu alle u dilay oo kale. Nietzsche waxay la ahayd in aadamigu uu qaangaari doono oo uu noqon doono insaan kaamil ah oo dhammaystiran oo ka xorooba akhlaaqda addoonta ee ku dhisan cabsida iyo damaca. wuxuuna ku dooday in ruuxda aadanuhu si ay u xoroodo darteed ay marto 3 marxaladood oo uu kala bixiyey marxaladda ratiga, marxaladda libaaxa iyo marxaladda cunuga ilmaha. qofku si uu dhab ahaan ugu dhasho wuxuu u baahan yahay inuu ka gudbo marxaladda ratiga iyo midda libaaxa. ninka waalan wuxuu ku baraarugayaa inaan cidna soo dhoweyn soo jeedintiisa, balse lagu wada eegayo indha ay diidmaga muuqato. markaasna inta faynuusta iska xoro ayuu wuxuu iskugu jawaabayaa sida muuqata waan soo degdegay, weli wakhtigaygii lama gaarin. hadalkaas oo micnihiisu yahay inuu dadka uu leeyahay hadda ma aad ifahmaysaan waxa aan idin leeyahay, laakiin waxaa imaan doona wakhti aad garan doontaan waxa aan maanta idiin sheegayo. Nietzsche oo la sheego in labada walxood ee uu dunida ugu necbaa ay ahaayeen kiniisadda iyo khamrada, lagana hayo inuu yidhi kama helo cabidda khamrada 1 galaas oo khamro ah ama biir ahba maalintii igu filan inuu nolosheeda u rogo togelina. si kaftan dhabaala ah ayuu dadka Jarmalka wuxuu ugu oran jiray waxaad ifahmi doontaan kolka aad cabidda biirta iska yaraysaan. falaasafo badan waxa ay qabaan in Nietzsche uusan necbayn Ciise Masiix, laakiin uu necbaa kiniisadda iyo wadaadada ku adeegta. sida la wariyey, ninka waalan isla maalinkii wuxuu ku wareegay kiniisadaha isaga oo geerida alle ka tacsiyeynaya. kolkii kiniisadaha laga wada ceeriyena wuxuu ku qayliyey maxay yihiin kiniisadaha hadda jira haddii aysan ahayn qabuuraha iyo xabaasha alle. waxaa muhiim ah in maanka lagu hayo in dadka Nietzsche sida tooska ula hadlayay ay ahaayeen bulshada Jarmalka iyo guud ahaan dadka diinta kiristaanka haysta. dadka diinta haysta waxay rumaysan yihiin in Nabi Ciise uu ahaa in ilaah ama ilaaha la dilay, laakiin dib ka soo noolaaday, ifkana uu dib ugu soo laaban doono si uu aadanaha u badbaadiyo, qiyaamuhuna uu dhici doono soo noqoshadiisa kadib. Nietzsche isaga oo fikraddaas ka duulaya ayuu wuxuu dadka u sheegayaa in ilaah uu dhintay, dadkuna ay yihiin kuwa dilay, soo noqosho iyo qiyaamo la sugayaana aysan jirin. Nietzsche dhimashada eebbe wuxuu u adeegsaday si uu u tusay calmaaniyadda qarnigii 19aad Yurub ku xogaysanaysay ee keentay in dadku aysan diinta dan iyo hele ka gelin, ayna ku mashquulaan danahooda adduunyo, cilmi, dhaqaale, bulsho iyo siyaasad, iyaga oo naftooda ku tashanaya alla iyo ambiyana waxba ka sugay. Nietzsche wuxuu kaloo cabirayaa dareenka argagax iyo baqdinta leh ee dad badani dareemaan marka ay maqlaan doodda sheegaysa in ilaah uu dhintay ama markii horeba uusan dhalan jirinba. dadka qaarkood waxay ku doodaan labada weerood ee maadada falsafada loogu hadalhaynta badan yahay ay kala yihiin weedha Kant ee tiraahda waan fakaraa sida dareedeed waan jiraa, I think therefore I am, iyo tan Nietzsche ee saadaalinaysa in eebbe uu xijaabtay. sida dhabta Nietzsche waxa uu ka qayb qaatay faafidda fikradda, laakiin erebixinta iyo fikradda midna isagu ma lahan oo dad badan baa ugu horreeyey. tusaale ahaan reer galbeedka qaarkood waxay rumaysan yihiin in qofkii ugu horreeyey ee laga maqlo in eebbe uu dhintay ay ahayd afadii wadaadkii Jarmalka ah ee Martin Luther ee noolaa 1483 ilaa 1546. sida la sheego, xilli wadaadku aad uga niyad jabsanaa waxqabadkiisa ayuu maalin wuxuu arkay xaaskiisa oo xiran maryin madow oo u eg kuwa ay xirtaan dumarka asayda sida,
goortii uu weydiiyey sababta ay maryaha madow u xiran tahayna waxay ugu jawaabtay markaan arkay sida aad u teeraayeense tahay baan waxaan u qaatay in eebba u dhintay. luuta oo fahmay ulajeeddada xaaskiisuna wuxuu go'aansaday inuusan quusan inta uu rumaysan yahay in eebba uu nool yahay. durbana wuxuu dib u bilaabay halgankiisii ku aadanaa dib u habaynta diinta masiixiga. sida loo badiyo Nietzsche fikradaha dhimashada eebbe wuxuu kala baxay dhigaalada 3 nin oo kala ah Charles Darwin ee noolaa 1809 ilaa 1882, filosofkii Jarmalka Hegel ee noolaa 1770 ilaa 1881, iyo abwaankii Ruushka ahaa Fyodor Dostoevsky ee noolaa 1820 ilaa 1881, oo Nietzsche uu ku tilmaamay inuu yahay saykolojista qura ah ee wax laga baran karo. tusaale ahaan Dostoevsky buuggiisa Shayaadiinta Dominus wuxuu ku leeyahay ilaah waa xanuunka geerida laga baqo, cid kasta oo ka adkaata xanuunka iyo cabsida iyada ayaa ilaah noqota. wadaadada diimaha oo dhan siiba kuwa yuhuudda, masiixiyada iyo islaamku waxay og yihiin in damaca iyo baqdintu ay yihiin diirarka tiimuhu ay ku taagan yihiin. haddii labadaas qodob la waayana ay meesha ka baxayso danaynta dadku ay diinta daneeyaan. baqdinta iyo damaca ayaa ah kuwa qofka alle iyo aadamiba u adoomiya. 8 bishii Abriil 1966 majallada caanka ah Time waxay daabacday maqaal lagu tilmaamay inuu yahay kan ugu caansan dhammaan maqaalada ay daabacday. wuxuuna ahaa maqaal ciwaankiisu qaab su'aala loo dhigay oo akhrisayaasha lagu weydiiyey su'aal oranaysa eebba ma dhintay. maqaalkaas oo dhaliyey dood muddo dheer socotay welina aan dhammaan waxaa lagu yiri eebba ma dhintay. su'aasha 3 eray ka koobani waa mid isku si u mihanaysa laba qolo: muuminiinta oo malaha si hoose uga baqaya in jawaabtu haa tahay, iyo mulxidiinta oo toonsan in jawaabtu maya noqon karto. fariimaha waaweyn ee maqaalku sida waxaa ka mid ahaa baahida loo qabo in dib loo qeexo macnaha la siinayo alle iyo saamaynta cilmiga iyo calmaaniyaddu ay ku yeelan karaan diimaha. John L. T. Olson oo ahaa saxaafigii maqaalka tifatirena waxaa laga sheegay inuu yidhi calmaaniyadda, sayniska iyo ku noolaanta magaalooyinka waaweyni dhammaantood qofka casrigan waxay u sahleen inuu isweydiiyo meesha eebba uu jiro, waana su'aal wadaadadu aysan u hayn jawaab xataa naftoodu ay ku qanci karto. siday ahaataba waxaa loo badinayaa inaan weli lahayn jawaab dhab ah oo laga bixiyo weydiinta maqaalka, waxaana lagu dooday in jawaabta ugu wanaagsan ee laga bixin karaa ay tahay in la yidhaahdo arrinku wuxuu ku xiran yahay waxa laga wado eebbe iyo dhimasho. suufigii gabyaaga ahaa ee Maxamed Iqbaal ee noolaa 1877 ilaa 1938 oo lagu tilmaamo aabbaha ruuxiga ee dalka Bakistan, kana mid ah aqoon-yahanada dunida islaamka aadka u akhriyay dhigaalada Nietzsche, isagoo aad moodo inuu hore uga jawaabo su'aasha majallada ayuu wuxuu yidhi in badan asxaabteydu waxay weydiiyaan ma aaminsan tahay jiritaanka eebbe. waxaan u malaynayaa inaan xaq u leeyahay inaan ogaado macnaha erayada loo adeegsaday su'aasha ka hor inta aanan ka jawaabin. saaxiibaday waa inay ii macneeyaan waxa ay ula jeedaan rumayn, jiritaan iyo eebbe, gaar ahaan labada dambe. waa haddii ay doonayaan in looga jawaabo weydiintooda. waxaan qirayaa inaanan fahmin erayadaas. mar kasta oon hubso is-idhaahdana waxaan ogaadaa in iyaguna aysan fahamsanayn erayadaas. 100 sano Iqbaal ka horna wadaadkii Thomas Aquinas baa wuxuu yidhi ma ogaan karno waxa eebba uu yahay, laakiin waxaan ogaan karnaa waxa uusan ahayn. We cannot know what God is, but rather what he is not. sida aqoon-yahanada qaarkood qabaan, Maxamed Iqbaal wuxuu ka walwalsanaa in warka dhiilada leh ee Nietzsche uu ka keenay diinta masiixiga ee sheegaya in eebba uu dhintay oo kale uu ku yimaado diinta islaamka. si taa looga gaashaantana Iqbaal wuxuu xal u arkay in diinta dib u habayn lagu sameeyo, waana arrinkaas midka uu dadaalka ugu badan ku bixiyey, kana qoray buugga lagu tilmaamay inuu yahay kan buugtiisa oo dhan ugu culus, waana buugga uu bixiyey dib u qaabaynta afkaarta diinta islaamka. Iqbaal mar uu ka jawaabayay sababta ku bixisay inuu mawduucan ka hadlana waxa uu yidhi islaamka waxaa dusha ka fuulay qalfoof khuraafaad ah, waxaana doonayaa in aan qalfoofkaas ka sifeeyo. hadalkan waa inaan loo qaadan in Iqbaal uu ka duulay dooda Nietzsche oo qur ah, maxaa yeelay Iqbaal aad buu intaas uga mugweynaa. wuxuuna ahaa nin bari iyo galbeed labadaba u arooray oo wara badan ka waraabay. wuxuuna ahaa nin si wanaagsan u fahmay falsafada galbeedka, laakiin intaas ka hor wuxuu si fiican u dhuuxay aqoonta islaamka iyo tan reer bariga. sida la caddeeyey, Iqbaal quraanka ayuu aad u akhrin jiray, wuxuuna lahaa laba haliyey oo ku weynaa oo kala ahaa Nabi Maxamed iyo suufigii Beershiyaanka ahaa ee Mawlaana Jalaaludiin Ruumi ee noolaa 1207 1273. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu nabiga qura samada tagay isagoo oo weli nool kana soo noqday. ambiyada kale oo dhami samada waxa ay tageen markay ay dhinteen kadib. waxaa taa dheer in nabigu safarka uusan keli ku ahayn ee uu weheliyey faraskiisii baalasha lahaa. sidaa awgeed Nabi Maxamed
wuxuu u ahaa nin samada iyo dhulka labadaba ka warhaya. islaamkuna ilaa heer wuxuu isku dayey in muslimku uusan adduun iyo aakhiro midna ku qadin. iqbaal oo xaqiiqdaas ku baraarugsanaana wuxuu yidhi masiixiyadu alla waxay ku qeexaan inuu yahay jacayl, islaamkuna eebbe wuxuu ku qeexay awood. maxamed iqbaal mar uu tilmaam ka bixiyey Nietzsche waxa uu yidhi maankiisu ma rumayn, laakiin waxaa rumeeyey qalbigiisa. waxaa xusid mudan in Nietzsche uu fikrad wanaagsan ka haystay islaamka. Nietzsche waxay la ahayd in islaamku uu ku guulaystay dhinacyada ay masiixiyadu ku fashilantay. tusaale ahaan wuxuu qabay in islaamku uu yahay diin maadada iyo nolosha adduunka aad u danaysa. Nietzsche si uu nooga dhaadhiciyo sida diinta islaamku ay daacad ugu tahay adduun jacayl ayuu waxa uu sawirtay kulan qarnigii 18aad dhulka carabta ku dhex maray nin Ingiriis ahaa iyo oday wahaabi ahaa. Ingiriiska kirishtaankiihii wuxuu aad u fajacay markii uu ogaaday in odayga wahaabigiihii uu laba walxood oo keliya uu dembi u yaqaan: in la caabudo ilaah aan alla ka ahayn iyo in sigaa la nuugo. ninkii Ingiriiska ahaa isaga oo yaaban buu odaygu wuxuu weydiiyey ka waran dilka iyo dhilaysiga. odaygiina wuxuu uga jawaabay eebe waa naxariis badane dembi dhaaf badan. Nietzsche waxyaabaha uu diinta masiixiga ku maagay waxaa ka mid ahaa sida ay adduunyada u liido, waayo wuxuu ogaa in aadamiga oo idil u riyaaqaan marka ay maqlaan Cumar Dhulle Allah u naxariista oo ku heesaya waa adi daraada waxa lay ambinayaa aan adduunka joogay ha igeynin aakhiro. waa kee ruuxa istiqyaarkiisa isagoo oo aan maanka laga xarin aakhiro ifka doorbidaya. waa dambe isla cilada Nietzsche oo ku dhaleelay masiixiyadda ayaa maxamed iqbaal wuxuu ku eedeeyey muslimiinta oo uu sheegay inay u dhaqmaan sida idaha. maxamed iqbaal gumaystihii reer Yurub ama muslimiintii hore ayuu wuxuu ku metelay inay yihiin shabeel. muslimiintii xilligiisii joogana wuxuu ku metelay lax. shabeelku wuxuu qabanayaa laxdu halkii ay isku dayi lahayd inay isbadbaadiso waxay ku mashquulaysaa inay shabeelka ku wacdido nimcooyinka faraha badan ee aakhiro jannada laga helayo. laxduna waxay ku doodaysaa in jannadu ay u sugnaatay masaakiinta tabarta yar ee xataa haddii afka gacanta loo geliyo aan qarinin. wacdigaas bay wadaysaa ilaa shabeelka uu ku sigto inuu rumaysto warkeeda. waa sheeko kullid ah midii Caras Ciise Kaarshe Allah u naxariistay uu ka xaladeeyey eewanka iyo waraaba. iqbaal wuxuu ku baraarugsanaa in aadanuhu uusan rooti la'aantiis noolaa karin, laakiin aysan habboonayn in rooti dartii loo noolaado. iqbaal muslimiinta iyo guud ahaan aadanaha wuxuu u sheegayaa in ruuxda iyo maadada labadaba loo baahan yahay, iyo in horumarka iyo ilbaxnimadu ay ka cortaan isdhexgalka wax kala amaashashada ummadaha kala duwan. guud ahaan haddii Nietzsche uu baahiyey baroordiiqda dhimashada eebe, iqbaal wuxuu isku taxallujiyey baahinta baaqa in eebe dib loo abuuro. haddii Nietzsche uu reer galbeedka u sheegay inuu soo degdegay, iqbaalna bariga wuxuu ku yidhi uma baahni dhagax maanta, waxaan ahay codka gabyaaga berri.